ciidamada booliska Somaliland ayaa hirtii waabriye saaka ku guuleystay in ay toogtaan libaax ka baxsaday beerta lagu xanaaneeyay calan waracade ee magaalada Hargeysa. Bismillahir Rahmanir Rahiim. xalay todobadii barkii markay ahayd baan loo soo sheegay baalkaas inuu soo dhacay gabadhna wax yeelay muddo 7 mirir gudahooda ayaan ku soo gaarnay goobtii ilaa xalay toowan ku jiray baadidoonkiisa insha Allah ta'ala taliya ciidankuna waajibkii buu nasiiyay ciidanimo raadiyahana uu ka sheegay idaacada shantii barkii subaxnimo ayaanu baalkii helay inkastoo deena soo hujuumay haddana waanu ka xoog roonaanay baalkaas sidaas ayuu ku dhintay waana shaqadii caadiga ahayd ee ciidanku qaban lahaa qayb kamida oo waliba yar ma aha wax weyn ma aha waa baal xayawaan oo soo dhacay oo shacabku ka badbaadinay waana shaqadii aanu shacabka u haynay weeyaan waxana libaaxaasi waqtigiisa lagu gubay meel u dhow beertaasi arkan libaaxa ayaa xalay chief iyo joogba u diiday bulshada ku nool caasimadda Hargeysa maadaama waxyeello u geysto bulshada waxaana uu dhaawac gaarsiiyay haweeney Oromo ah oo jaar la ahayd xirada lagu dhaqo libaaxaasi gabadha marwadii wax ka soo baxday xamaamka halkan wax yaadhi gaari duqaana dabeeto markuu libaaxu soo baxay gaariga duqaanku isku soo loodiyay dabeeto gabadhii buu qabtay dabeeto halkan ayuu la soo galay ciidanka ayaa ka gariday xabad dhaawacay marka xabadii ku dhacdo dhaawac noqday ayuu baxsaday dabeeto sidoo baxsaday godkii uu xalay ku dhacay ayuu la saa ku jiray godka hadaanu ku dhici lahayn ummad fara badan u galaafan la godka hadaanu ku dhici lahayn ummad fara badan u galaafan la qaar kamida bulshada dariska la ah xirada lagu xanaaneeyo libaaxyada ee magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Somaliland ka dalbaday in laga raro goobtaasi lagu hayo libaaxyada maadaama ararkani ay yihiin dad qaada Yuusuf oo la jaara in waracade meeshan uu libaaxyada ku xareystay wax weeyaan markasta anaga waxa naga haysatay werwer iyo dib iyo dhibaato weyn sanad kastana qof buu cunaa waxaan u aragnaa qofka cunaa waa qof dumar haddaan dumarnahay in raggu ka dhiidhiin lahaa inaanu ka dhiidhiyeen oo dumarkoo kale way ka dhiidhiyeen marka rag wax weyn nooga qaban lahayn hadii uu maxay ahayd caruur yar yar halkan waa meesha waxay leedahay kubad meel lagu ciyaaro kubadda meesha lagu ciyaar baan ugu ciyaara ciyaarka haduu ku soo baxo mid ka reebi maayo habeenkii haduu soo soo goosto waxaan ku yiri jaarkii baan leenahay dhibaato weyn baan ku qabnaa dawladda waxaan leenahay laga qabto oo maxay ahayd xukuumaddu ha ka taliso oo laga raro oo laga fogeeyo baan leenahay hadii kale insha Allah bidmillaahi kariim deynaan ka qaxno magaalada ugu qanay maadaama libaax laga qaban kari weydeen ku haytimi habeenkii halay ma seexan ma suxuran sidii baanu caruurtii may kaadi tagin dadkii waaweynaa booga ku kaajay war baalkana naga raada ilaahay garanaysan ninka noogu yeedha xaafadana may timaan baa leedahay libaax walaal habeenku soo baxo waanu baqanaa guriyaha kama soo baxno marka dambe waxa waa been xumo soo bixin habeenku soo baxay habeenku aanu soo bixin cidba kala garanayso dareenkiinu seebo noqday hal naga saaro beerta laga saaro xaafadda laga dhex saaro dekorayaal la geeyo cidla oo jooga bilaadan joogin dareenkaygu waxa weeye baalkan wadnaanu farta ku haynaa magaalada uhdiibu ku jira dhalinyarada habeenkii markay naga baxdaan waxaan ku ma seexano marka waxa weeye in laga raro oo xaafadda laga raro oo laga saaro ayaanu doonaynaa haddaan haweenahay hana laga qabto baalka Cabduqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka qaranka Somaliland Hargeysa.